بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كانال كيني SMCC داوديال maanta waxaan ka hadlaynaa waa kuwee cunooyinka aan loo ogoleen in ay cunto hooyada xilliga ay uurka leedahay. Hooyada inta ay uurka leedahay waxa ku imaado isbedelo badan taasoo keento hooyada inay cuno fiican qaadan weydo. inkastoo hooyada cuno xumo lagu arko xilliga uurka haddana waxaa muhiim ah in aan siino cuno dheelitiran. waxaa hooyada lagula taliyaa cunooyinka in ay qaadato hadba intay awoodo waliba ayadoo ku noqonayso maadaama hooyada ay ku adag tahay inay cuno xoogaa hal mar ay wada cunto. waxaa lagula taliyaa cunada inay intay wax yar cunto markay saacado joogtaba in ay ku noqoto maadaama cuniga caloosha ku jiro uu koraayo hooyada waxay u baahan tahay nafaqo ka badan xadigii ay hore u qaadan jirtay. waxaa jira cunooyin aan hooyada loo ogoleen in ay qaadato xilliga uurka. haddii aan horey u maqli jirnay daawooyinka qaar looma ogolo hooyada xilliga uurka leedahay maanta waxaan ogaanaynaa cunooyinka aan loo ogoleen hooyada taasoo cilmi baarayaasha caafimaadka ay ku ogaadeen inay saameyn caafimaad daro ku keeni karto cuniga ku jira caloosha. ogowse cunada aan cunno waxa ay yeelan kartaa awood halis gelin karto caafimaadka ilmaha ku jiro caloosha. haddaba daawadayaal cunooyinkaas waxaa ka mid ah ukunta ceeriinka. inkastoo hooyooyinka inta badan aysan jeclayn cunista ukunta ceeriinka haddana waxaa dhici karta hooyooyinka qaar in ay jecel yihiin cunisteeda. ukunta ceeriinkana waxaa fudud in ay ku dhex noolaato bakteeriyada loo yaqaano salmonella taasoo sababi karto hooyada inay dhiciso. sidoo kale waxaa ka mid ah cunooyinka aan loo ogoleen hooyada cabista kafeega. hooyada xilligay uurka leedahay guud ahaanba looma ogolo inay cabto kafeega sababtoo ah kafeegu waxa uu ka gudbaa xariga xudunta cunuga. wax waliba oo ka gudba xariga isku xiro hooyada iyo cunugeeda waxa uu qalqal geliyaa caafimaadka uurjiifka. kafeegana waxa uu inta badan ku sababaa ilmaha ku jira caloosha in ay ku dhashaan miisaan yari. qudaarta aan sida fiican loo dhaqin iyo hilibka aan sida wanaagsan loo karin waxay saameeyaan caafimaadka cunuga taasoo ugu wacan tahay bakteeriyada ku dulnool dushooda. malaayga noociisa loo yaqaano tuna iyo daawooyinka fitamiinada ay ku badan yihiin fitamiin A-ga waxayna ka mid yihiin cunooyinka qalqal geliyo caafimaadka cuniga ku dhex nool ilma galeenka. waad ku maasan tahay daawashada muuqaal.